education platform. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، halkani waa qalam education platform. waa ustaad Cabdullaahi Maxamed Xamed oo idin dhigi jiray maadada sayniska oo idin dhahaya ku soo dhawaada duruusteena soo socotay ee kaaga imaanaysay qalam education platform ama kaalinka qalin ee waxbarashada. waxaan ku dhex jirnaa cutubkeenii afaraad ee maadada sayniska ah. cutubkaasna wuxuu ku saabsanaa dabcan dhirta, gaar ahaan habka dhirta ay cuntada u samaysato ayaa casharkeena koowaad aan kaga soo hadalnay. casharkaana waxaan kaga hadlaynaa kala duwanaanshaha dhirta iyo xayawaanada. dabcan haddii la weydiiyo xayawaan iyo dhir farqi u dhexeeya muxuu yahay, dabcan caqliga ayaaba sheegayaba intaan sayniska aanan guda gelinba. caqliga muxuu sheegayaa xayawaanku waa noole ordaya, soconaya, dhaqdhaqaaqaya, halka geedahana ay meel iska taagan yihiin. waa qodob. waxaan kaloo soo sheegnay dhirtu inay samaysato cuntadeeda oo ayada isku filan tahay, halka xayawaankuna uusan samaysan karin cuntadiisa. uu u baahan yahay inuu xayawaan kale cuno ama in dhirta waxa ay soo saartay inuu markaas cuno ayuu u baahan yahay. qodobka xiga oo aan dhihi karna xayawaanka dhirtu waxay ku kala duwan yihiin waa maxay? inay xayawaanadu koritaankooda uu yahay koritaan xadidan, halka geedahana koritaankooda uusan xadidnayn. hadba geedka hadduu haysto nafaqo ku filan, geedka in badan wuu korayaa dabcan. waaya, su-aalahaas ama qaybahaasi qayb wax ku saabsan ayaan insha allah aan gudageli doonaa. waxaanu ku bilaabaynaa casharkeenna labaad, waxqabad baan ku bilaabaynaa oo la doonayo inaa adiga aad qabato si aad casharka soo socdo aad u fahantaan. waxqabadka koowaad ee casharkeen labaad wuxuu ku saabsan yahay waxqabadkani waxa aan isbarbardhigayaa dhirta iyo xayawaanada aniga oo fiirinaya qodobada soo socda. kow, habka socodka anoo eegaya habka socodka. labo, anoo eegaya habka cuntada ay u helaan. sidoo kale anoo eegaya habka dareenka, iyo ugu dambayn habka koritaanka. afartaas qodob anoo ka fiirinaya ayaan waxaan isbarbardhigayaa dhirta iyo xayawaanada. casharka labaad dabcan wuxuu ku saabsan yahay niri kala duwanaanshaha dhirta iyo xayawaanada. tusaha hoose jadwalka soo socda hoos ku qoran waxa uu soo koobayaa kala duwanaanshaha u dhaxeeya dhirta iyo xayawaanada. qaybtaana waa dhirtaan uga hadlaynaa, qaybtaan waa dhirta, qaybtaana waxaan uga hadlaynaa xayawaanada. qodobka koowaad, dhirta ma socoto, balse waxa ay leedahay dhaqdhaqaaq xadidan. laamaheeda iyo caleemaheeda ayaa dhaqdhaqaaqaya, laakiin dhirtu ma soco karto. dhanka kale xayawaanadu waa ay socdaan iyagu, waxa ayna leeyihiin dhaqdhaqaaq xor ah, dhaqdhaqaaq aan xadidnayn oo xor ah bay sameeyaan. waa qodob koowaad. qodobka labaad waxaan fiirinaynaa xagga cuntadaan niri soo mahayn. dhirta iyaga ayaa samaysta cuntadooda, xayawaanadana ma samaysan karaan cuntadooda. waxa ayna ku tiirsan yihiin dhirta iyo xayawaanada kale ay ku tiirsan yihiin. qodobka labaad waa taas. qodobka saddexaad, xagga koritaanka markaan fiirino, dhirta koritaankeedu ma xadidna oo hadba geedka hadduu heli karo cunto ku filan iyo nafaqo ku filan, geedka iska koraya weligiis. laakiin xayawaanadu koritaankoodu waa uu xadidan yahay.
qodobka afraad ee u dambeeya waa xagga muxuu ahaay dareenka unugyada dhirtu waxa ay leeyihiin derbi unugeed bay leeyihiin waa xagga dhismaha sorry ma ahan xagga dareenka ma aha waa xagga dhismaha unugyada xayawaanaduna ma lahan derbi unugeed ma lahan derbi unugeed ma lahan xagga dareenka maadaama aan soo sheegnay qodob afraad uu ku jiray saddexaadka oo habka dareenka geedaha dareenkoodu waa xadidan yahay halka xayawaanada ay leeyihiin dareen aad u weyn oo la yiraahdo dareen culus bay leeyihiin oo ay deegaanku ay ku ogaanayaan khataraha uga imaanaya waxqabadka saddexaad ama aan dhaho casharka saddexaad maadaama casharka labaad uu yaraa waxaan ku daba qabanaynaa casharka saddexaad isku tiirsanaanta dhirta iyo xayawaanada isku tiirsanaanta dhirta iyo xayawaanada waxqabadka koowaad anigoo kaashanaya sawirada hoose waxa aan ka jawaabayaa weydiimahan kow maxaa uu yahay xiriirka ka dhaxeeya dhirta iyo xayawaanada su-aashaasi markii aad ka jawaabtaan idinkoo koox koox u shaqaynaya kadib waxaan gudageli doonaa casharka ku saabsan isku tiirsanaanta dhirta iyo xayawaanada xayawaankuna dhirtu kama maarmo dhirtuna xayawaanadu kama maarmaan oo way isku tiirsan yihiin ilaahay baa isu baahiyo way isu baahan yihiin su-aasha labaad xayawaanadu maxay dhirtu ka saacidaan xayawaanadu maxay dhirtu ka saacidaan oo dhirtu maxay xayawaanku uga baahan tahay dhirtu maxay xayawaanada u taraan ama u tartaa iyaduna dabcan isku tiirsanaantii su-aalihii ku saabsanaa waa marka midba midka kale waxaan nidhi kama maarmo uu u baahan yahay marka sababta rabna inaan tilmaano haddaad u fiirsato masawirkan intaana cashar gudagelin ka hor masawirkan maxaad ka fahantay ood u jeedaan si fiican u fiiri masawirku maxaad ka fahantay haddaan fiirino masawirka halkan waxaa ku yaala geed okay geedka wuxuu soo saaray oxygen falaarta fiiri geedka wuxuu soo saaray oxygen waa maalintii markii la joogo geedaha waxay soo saaraan hawo fresh ah oo loo yaqaano oxygen oxygenta ay soo saaraan qayb kamida iyaga dib u ceshta u isticmaala halka qaybta soo hartana waxaa isticmaalaya xayawaanka isticmaalaya oxygenta dhirta ay soo saaraan qayb kamida iyaga reebanaya oo u reebanaya inay ku neefsadaan habeenkii halka qaybta kalena ay hawada ku sii daayaan oxygentaas ee geedka soo daayay waxaa u baahan oo aan ka maarmayn xayawaanka u baahan oo bini aadamku ku jiro haye xayawaanku markuu oxygenta qaato isna wuxuu soo saaraa neef loo yaqaano carbon laba oxide falaartu marna geedka wuxuu soo saari karaa carbon laba oxide marna asaga u baahan oo qaadanaya okay habeenkii markii la joogo geedka wuxuu soo saaraa carbon laba oxide isagaasa qayb kama isticmaalaya haddana xayawaankan wuxuu soo saaraa carbon laba oxide marka carbon laba oxide baa waxay kala imaaneen laba jiho marna geedka ka imaanay marna xayawaanka ka imaanaysaa laakiin midda geedka kuma filno waa inuu xayawaanku ka helaa soo isku tiirsanaanta xagga neefta la yiraahdo carbon laba oxide iyo oxygen ayaa geedka iyo xayawaanku markaan leenahay waa bini aadamkan uu soo gudagalayaa kama maaran marka geedaha waxayna siiyaan oxygen innaguna waxaan siinaa carbon laba oxide baan siinaa waaye aan gudagalna cashir marka dhirta iyo xayawaanadu way isku tiirsan yihiin mana kala maarmaan oo mid ka maarmo ma jiro dhirtu si ay photosynthesis u samayso waa processkii ama qodobka hadda aan ka soo hadlaynay habka cunto samaysashada geedka waa waxa ay xayawaanadu ka heshaa ama ay ka helaan carbon laba oxide waa qodobka hadda aan soo sheegayno waa geedka wuxuu samaystaa cuntadiisa laakiin wuxuu u baahan yahay carbon laba oxide oo ka helaya xayawaanka
مثلا shinnida balanbaalista iyo xayawaano kale ayaa jira waxa ay dhirta ka kaalmeeyaan falxidda iyo firdhinta iniintooda. geedka wuxuu u baahan yahay inuu tarmo waxaa loo soo qaadaa shinnidu waxay soo qaadaa maalan ubaxa dhadiga ah ubaxa labka dhaha shinnidu waxay soo qaadaa ubaxa labka ah muxuu ahaayey unug tarameed ku jiray soo qaadaa waxay keentaa geedka dhadiga ah ay u keentaa. halkaas marka waxaa dhacaya waxa loo yaqaano yacni muxuu ahaayey falxid iyo firdhin. garanaysaa falxid iyo firdhin waxay ka hadlaan habka geedka uu tarmaayo sidii loo soo qaadi lahaa maxay aheetoy unugyada taranka dhadiga labka loona keeni lahaa unugyada taranka dhadiga ah loo keeni lahaa. tusaale kale haddaan soo qaadano gooryaan dhuleedka tirxiyo waxaa jira dhulka hoostiisa ku nool ayaa jira oo loo yaqaano tirxi dhuleed ama gooryaan dhuleed oo dhulka hoos nool. iyo xayawaano kalaa jira waxa ay ka qayb qaataan bacriminta carrada si ay dhirta u korto. yacni dhirta laftigeeda waxay u baahan tahay carro barwaaqaysan oo bacrimisan. si marka carrada loo bacrimiyo waxaa ka qayb qaadanaya xayawaano yaryar baa jira ka qayb qaadanaya bacriminta dhirta inay bacrimiyaan. marka geedku xayawaanku kama maarin marka xagga cunto samaysashadiisa xagga nafaqo helitaankiisa xagga oxygen helitaanka iyo carbon dioxide kulli kama maarmo. xayawaanaduna waxa ay dhirtu ka helaan qodobka hadaan soo sharxay wuxuu ahaa geedka muxuu ka helaa xayawaanka. haddana waxaan ka hadlaynaa xayawaanka muxuu geedka helaa. marka waxay dhirtu ka helaan kow cunto daawo oxygen. sida oo kale dhirtu waxa ay qaataan carbon dioxide oo ay hawadu ka yaraynayaan. dhirtu waxa ay hooy u tahay noole kala duwan nooleyaal badan bay dhirtu u tahay muxuu ahaayey waxay u tahay hooy meel lagu hoydo. sidoo kale dhirta iyo xayawaanadu labaduba waxa ay ku tiirsan yihiin cadceedda qoraxda kama maarmaan labadooduna waxay ku tiirsan oo kale hawada biyaha iyo carrada. marka cadceedda kow hawada labo biyaha saddex iyo carrada afartaas waa noolayaal halka dhirta iyo xayawaanka dhammaantood ay yihiin noolayaal. marka marna waxaa arkaysaa xayawaankii iyo dhirtii ayaa isku tiirsan ayagoo wada noole ah. marna waxaa arkaysaa xayawaanka iyo dhirtii oo wada jira waxay ku tiirsan yihiin cadceedda hawada biyaha iyo carrada oo ayagana ah noolayaal. laakiin waxay dhahaan biotic iyo abiotic bay dhahaan. مثلا geedka wuxuu soo saaraa oxygen. oxygentaas waxaa qaadanaya xayawaanka qaatay. okay xayawaankuna wuxuu soo saarayaa carbon dioxide. waxaa qaadanaya geedka qaadanaya. idan markuu isku tiirsan yahay marka waa isweydaarsiga. qodobka wuxuu ka hadlaa isweydaarsiga labada neef labada hawo oo kala ah carbon dioxide ee dhirtu u baahan tahay iyo oxygen oo u baahan xayawaanka. carbon dioxide waxaa soo saara xayawaanka geedka qaadanaya. oxygentana waxaa soo saaraya geedka xayawaanka baa qaadanaya. marka waa qaabka ay isu weedaarsadaan waaye kala faa'iidaysiga waxay u baahan yihiin iyo waxa aysan u baahnayn. halkaas waxaa noogu idlaaday cashirkii labaad iyo cashirkii saddexaad ee ku saabsanaa cutubkeenna afaraad ee ku saabsanaa dhirta. innagoo kaga soo hadalnay habka samaysashada cuntada dhirta iyo innagoo ka soo hadalnay habka isku tiirsanaanta dhirta iyo xayawaanka qaabka isugu tiirsan innagoo ka soo hadalnay. cashirkan cashirka xiga annagoo isku soo laaban doona insha allah. halkaas waxaan ku samaynaa cashirkeennii saddexaad iyo labaad oo soo socday ayaan halkaas ku samaynaa. aad iyo aad u mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad noo dhagaysateen. والسلام عليكم ورحمة الله
wabarakatu.